qaran baa lagu hayaa maxaa qaran ah qaran xagee jira kufr iyo gaalima naga badbaadshay in la burburo oo hadii aan magdheer isku dhaxal ma fiicno ama aan qaxnoon jabno barakacna ma wanaagsano laakiin tii Soomaaliya Ilaahay baa naga dumiyay Allihii naga dumiyay oo mahadnaqaynaa Allihii naga dumiyay ee kufrigaana dhaafiyay oo mahadnaqaynaa dibkana gaaray iyo iscunkaan iscunay iyo dhiig anaga qulqulada waa ka xunaay laba shay in la kala saaro way nidaamkii shaytaaniga ahaa ee taaquutiga ahaa Allihina dhaafiyay waa ku mahadsan yahay subhanahu wa ta'ala dibkii ka dhashay laakiin waxaan ku tala galay ma ahay waxaan nagu aan ka talinay ama aan u diyaar garownay ama aan sugayna ma ahayn imtixaan kale ah dulmiga aan geysanay baa laga jawaabay baaba iyo burbur baa dhacay kitaabka Ilaahay baa inta casar loo tashaday baa leeyahay waxba kama jiraan waa mansuukh haween iyo rag iyo dumar waa siman yihiin thuluth iyo rubuc iyo khums iyo jin waxba kama jiraan Soomaaliya dhan baa u mashxaraday Allah mashxaraday waa loo durbaantumay duqeydii culumadii macallimiintii haweenkii hooyooyinkii durbaana loo garaacay waa loo mashxaraday wadaadda yidhi hawshaas waxba kama jiraan kitaabka Ilaahay mansuukh ma aha xukunka rabbi baa saxan warkaad odayahu wadana waa baatil qabta la yiri wadaad xuma qabta waa la toogtay wadaadii la toogtay waan u mashxaradnay dabaaldeg baa loo dhigay Soomaaliya dhan baa isku in la laayo oo yihiin wadaad xumi alla qabto rijci khalfi'a muxuu ay dib u socda ee kacandiida ee wadaad xume waa la isku raacay taas Ilaahay minuusan jawaab ka bixinaad moodaysaa nawshayada kitaabka Ilaahay intii lagu tuntay wadaadkii u dhidiyay la yiri wadaad xume hal la dilo oo loo mashxaray dhamaanteed golaha shacabka Soomaaliya lagaga doodi jiray Ilaahay ma jira mise ma jiro baa lagaga doodi jiray markaas maxamed cali xaashi wuu joogay waa yeelkii carab saalax la weydiiyo 2005 kimiyay meelaha 4ki satiriga taqriiban sooti anoo kitaaba shujaaca ku jacburin haya yaan qaranka Soomaaliya xogo amaanay oo ku yar weyraxay sida mid hadda meel ma soo joog ugu weyraxay baan ku weyraxay anuu odaygii baa yiri adeer wiil yar baa tahay Ilaahay baa tii Soomaaliya ku dhaafiyay ku mahadnaqbur maxaa jira adeer أنا وحول الدنجرة مهبلة كانت فيه مهبلة لكن قالها الشعب كان فردي ولا قد إلهي مجد مسمجره وما عمد حلا حاشب هذا يروح مراتك شباب لين مقاني من موطن وجو قاضي وإله لو يدي سوتيبا يقول مسؤول دجاجة جري ما قان هذا ملك الدنبي عبد الله على شو ولالكي وي طيب مش عبد الله على شو ولالكي مرحبا مركا محاجرة وحول نمانك إلهي وجر وحال إن تصل التفسير إله الشيء يسال كان سوف رسيل مسك نمانك هو يكعين عبار بالمغناية وحال إله وان سوين إلهي ما هينه والقوري نمانك إلهي مجره وان خرافه وباطل ذلك هو فسحين لا إله إلا الله مجر وحال مجران وحاول لا إله ولا حياة مادع إله مجره وحال سيد بالله صرفات بالسي أبا القد بالسي والله مش ولا دلعسين هي قبل المسلمين واجد لما صبح يقول لي وهذه حقوق يركوا أخيان وحجابتين شراميد محوها يا صوماليات بنتي الله صوروريه والمساجد اللي هور كانوا حجاب الله صحوره يا بابور طلبوا قادن هيا بلها لالتي كدبنا تي في اللي كاني يحب الله صور صوري marka kulligood inay wadaaduhiin muxuu ahay wada sunnad gabdhuhuna zawaaniyihiin wada sharaamid khariisiyihiin baa lagu qoray Soomaaliya waa laga dhaadhiciyay qaybta dambiyuud ba soo degtay waa laga dhaadhiciyay diintu waa mansuukh waa laga dhaadhiciyay waa in mashxaradeen kulligood in shuuciyad iyo hanti wadaag iyo kufr iyo gaalnimo waa mashxaradeen ninkii yiraahdo waxan ma jiro waa la dilahayaa Soomaaliya baan u mashxaraday oo taageeri waa la isku raacaya jawaabu Ilaahay ka bixi subhanahu wa ta'ala ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هؤلاء إذن كذن بيي تيبا ألا ندافيي دور إيو 10 سنة هذا نسو روغيني قولوا في اللقاتك بانسو إلى أن أسباب بإني إبر انتو رأى لغا مهرين وحي وذا إن الدلي وذا الحمد الله حكومي إن لباب بأشي إنا قول إن الأول ديبي كتبتانا لغو قرأي بلاها إن لباب بأشي لغو مصمرين حالي هذا وإن لدي بس إذا أريج لدوفيو ولدو في جيبوتي يمريكان يوروب وإن لقدوا الميزان وقبل يودوا ذا
miisaankii baan diidnay xoogow